وعن نبينا كصلى الله عليه وسلم إنه يريه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صون للصومه رمضان كذب markii Ramadan laga yimaado soon la soomo waxa ugu fadli badan soonka bisha Muharram bishan soonkeeda ugu fadli badan taasi waxay tilmaamaysaa cidii kari karta inay bisha badankeed soomto intuu awoodi karo ruux inuu bisha ka soomo taasi fadiiladaas ay tilmaamaysaa waxa iyadu si gooniyo mudnaan u leh laba maalmood oo maalinka bishu 9 tahay iyo maalinka ay 10 tahay maalinka ay 10 tahay waa yawm Ashura nabigeena ka hor salawaatu rabbi wa salaamu alayhi intaan la soo saarin jahiliyadii carabtu way soomi jireen nabiguna sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday wuxuu u yimid qoysaskii yahuudda ee magaalada Madiina deganaa oo soomaya maalinkaas markaasuu weydiiyay maxaad u soomaysaan waxay yiraahdeen waa maalinkii Ilaahay Nabi Muuse badbaadiyay Fircawnna halaagay saas daraadeed baan u soomaynaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam Nabi Muuse annaga idinka xigna annagana idinka xaq leh waa soomay nabigu soonkeedana waa amray ummadda isaguna waa soomay ummadiisana waa amray nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka in la soomo intaan ramadaanka la waajibinin maalinka soonkeedu waajib u ahaa yawm Ashura soonkeedu waajib u ahaa waxa dhacday maalmaha kamida markuu waagu bariyay kadib inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ogeysiis bixiyay oo uu yiri ninkii aan wax cuninow maanta soon waa Ashura ninkii wax cunayowna maalinka inta ku laaban soomano oo afhayso yani cunto dhanba ha cuni waxa hadiista ay ka qaadanayaan inay waajib ahay Ramadaan ka hor Ramadaan markii la waajibiyay kadib waxay soonkeedu noqotay sunno noqday waajibnimadii baa laga soo dejiyay wuxuu noqday sunno cidii rabtana soomi cidii rabtana ay iska dayn karto waxa nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka sugan marka maalinkaas yahuudu soomi jirtay isaguna soomay ummadana amray gadaal dambe nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri sanadka uu dhiman doono wax yar ka dhimashadiisa wax yar ka hor la in baqiitu ila qabilin la asuumanna التاسع nabi sallallahu alayhi wasallam hadaan gaadho sanadka soo socda waxaan soomi doonaa sagaalaadka bimaana maalinkii tobnaad oo dhaqan yahuuda iyo iyagu lagu arkay oo nabiguna waxay ahaan ugu yimid oo sida uu ku waafaqay ah yaa waxa gadaal ka yimid dhaqankii yahuuda iyo khilaafa iyo nasaarada nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri hadaan noolaado sanadka soo socdo oo gaadho sagaalaadkan soomi doonaa culimadu waxay ka fahmeen tobnaadkii meesha lagama saarine sagaalaadka iyo tobnaadka la isla soomaya oo Ashuraana waa la soomi maalinka ka horeysay sagaalaadkana waa la soomaya si loo khilaafo yahuuda loo khilaafo haddaba sida sunnada wax weeyaan in labada bari la wada soomo maalinka 9ka iyo maalinka 10ka haday maalinka 9aad ku dhaafto Abdullah ibn Abbas waxa ka sugan inuu yiri maalinka 10aad iyo maalinka ka dambeeya soon bimaana si aad wali u khilaafto macna hadaad 9aadka ka gaadhi weydo oo 10aadka soonto 11aadkana ku dar marka sunnadu waa sidaas ajirka ku jira nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam maalinka 10aad ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla yani ilaahi waxaan ka sugayaa buu ajirkaga rabaa in maalinka 10aad soonkeeda ilaahay ku dhaafo ku saamaxo sanadkii ka horeeyay dambigii la galay marka sanad dambigeeda waa marka waa ajir weyn hadii aynaan soomi kareynin
inteeda badan labada bari aan ku taagsanno insha Allah ta'ala taasana idin baraarujin rabbi jazakumullahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh